waxaan rabaa inaan tuso saaxiibayaal istiraatiijiyadda ugu fiican forex trading istiraatiijiyaddan ku tilmaanay oo ah waxa weeye low and order oo weliba aan fududaynay oo ka soo saarnay 5 qodob oo aad u fiican oo ku hagaya oo powerful ah lacagtan hadda dul joogno waa euro USD waxa kuu muuqata inaan laba dhinacba analyze-kayga aanan hal jiho ku dheganaanayn marka aad tradingka aad analyze samaynaysid ama aragti fursado inaad fulisid ama practice samaynaysid ama aad backtest samaynaysid ma ahan inaad hal jiho un ku dheganaatid suuqu nobody knows ogaan kara meesha uu aadayo bay buu aadayaa sil buu aadayaa hadduu doono consolidation buu kugu ahaanayaa muddo badan ma garanaysid marka suuqu meesha uu aadayo waxa aad samaynaysid waa saadaalin weeye okay maadaama waxa samaynaysid ay saadaalin tahay waa inaad tiraahdaa haddii shuruudaha noocaas iyo noocaasa uu suuqu ii sameeyo waxaan u qaadanayaa fursad bay ah haddii sidaan iyo sidaan uu ii sameeyana waxaan u qaadanayaa fursad sele haddaba waa berri caawa habeen axad soo gelayso waa isla arki doonaa maalinta isniinta meesha lacagta aan aado waa euro USD waa lacagta aan ugu isticmaalka badanahay anigu aan aad uga trade garayo teamka igu xiran aan mentorshipka ahayn ay aad uga trade garayaan waa lacag runtii fundamentalkeeda iyo xogteedana aan aad ula socono analysis-keedana iyo waxa weeye wax kastoo samayn kartana aan saadaalin fiican aan ka qaadan karno okay lacagtan marka hadda isniinta suuqu markuu inoo furmo insha allahu tacaala waa isla arki doonaa oo sida aan idiin sheego inay u dhacdo in kale waa arki doontaan lacagtan marka higher time frame 2 hour-ka weliba anu baan qiyaasta higher time frame ka qaadanaa waa uptrend weeye oo waxay joogtaa meel fursad bay laga qaadan karo oo higher low iyo higher high u dhaxaysa okay haddaba istiraatiijiyadeennu waxyaalaha ay kaga fiicanta istiraatiijiyadaha kale waxa weeye waa istiraatiijiyad scenaariyooyin kala duwan leh haddii fursadda higher time frame-ka aad heli weydid waxaad heli kartaa fursad low time frame ah oo jiha ka soo horjeeda ama adigoo higher time frame isticmaalaya baa jihadii suuqu u socday waxa u qaadan kartaa intaasoo trade oo trade-ka asalka u dhalinayo trade kale oo u dhalinayo ah oo waxa weeye isla jihadii u qaadan kartaa way lacagtan marka meesha inaga aan ka fulinayno trade-ka guud ahaantiisba meesha aan trade-ka ka fulinayno waa higher high-ga ilaa iyo higher low-ga ilaa iyo higher low-ga inta ka dhaxaysa weeye ilaa iyo higher low-ga inta ka dhaxaysa weeye intaasaan ka trade garaynayna maadaama aan intaa ka trade garaynayna marka fursadaha aynu ka raadin jirnay ko muxuu ahaa inaan soo xaqiijino trendiga waa uptrend talabaad inaan soo helno liquidity waatan waa soo helay saddexaad in liquidity-ga laga soo jabiyo manipulation moveska ay dhacaan manipulationkii qayb ka mid ah ay dhacday oo manipulationkii waxa lagu sameeyay dadkii retail traderska ah oo liquidity-ga waa la soo jabiyay okay liquidity-ga lugtii jabisay lama soo jabin ama counter trend break lama samayn counter trend-ku maxaa weeye baan nidhi waa jihada asalka ah suuqu impulsive markuu sameeyo correction-ka soo laabanaya ee kuu samaynaya waxa weeye trade-ka kuu dhalinaya in isagii la jabiyo weeye isagii ma la jabiyey marka maya weli lama jabin isagii weli lama jabin soo ma aragtid lower low lower high waxaanoo dhan waa lower low lower high soo ma aragtid lama jabin marka kan weliba waa potential lower high oo aan weli lower low samaysan weeye okay goonmaan marka fursaddaydani ansax noqonaysaa si kale aan u fikiraynaa suuqu trendi buu ku soo laabtay qaab trendi ah buu ku soo laabtay oo waxa suuragala adiga fursad bay aad sugaysaa trendigan soo laabtay inuu higher low-gaaga jabiyo oo sii socdo waa suuragala soo maaha labada dhinac suurtagalnimadooda marka waa inaad fursadaada adiga ku beesgarayso ka raadisid way okay fursadda 15 minute-ka ee soo laabatay alxaq wala damay fursadda 15 minute-ka ee soo laabatay baan isla fiirinaynaa marka fursadda 15 waxa weeye lower low lower high lower low lower high soo ma lower high-ga u dambeeya iyo lower low-ga u dambeeya ayaynu fursaddeena ka dhex raadsanaynaa liquidity-ga ka dhex raadi marka liquidity-gi waa taas marka isleeg fiican oo sare
ayuu ku sameeyey. Waxaan sugaynaa suuqu inuu liquidity-ga jabiyo oo zone-kayga tago. Hadduu zone-ka tago oo soo laabto marka meesha aan rabo inaan idinkala hadla halkan way. Hadduu zone-ka tago oo soo laabto oo counter trendigii soo jabiyo, waxa aan u ololeynaynaa fursad sell ah baan u ololeynaynaayo in waxa weeye waxaan rabnaa higher lowgii ahaa higher time frame-ka in isagana la jabiyaan doonayaa. oo fursaddaani markay soo laabanto halkaan aan ka sell garaynaynaa. way dhici weydayoo suuqii dhaqaaqiisii buu iska sii watay oo wuxuu jabiyey zone-kaygii buu jabiyey. waxaanoo dhan isniintay dhacayaan in ala fiirsan baa rabaa. Zone-ka hadduu jabiyana maxaan ka sugaynaa inuu igu soo laabto zone-ka si aan u baygareeyo. mala fahamteen hadda? waa laba wax kaliya. suuqu hadduu zone-ka ixtiraamana oo soo laabtana fursad sell ah baan qaadanaynaa. hadduu zone-kan jabiyana wuxuu ii jabiyey counter trendkii hore oo asalka ahaa oo jihadii suuqu u socday oo weyneyd ah oo volatility-gan ilaa suuqa volatility-gu hadda ku socdo waa down trend soo ma. volatility-gan in lagaa istaajiyaa doonaysaa si aad suuqa bay ugu gashid. haddii marka zone-kaagan la cuno volatility-gii down trendka ahaa waa lagaa istaajiyey ee fursadda up trendka oo weyn baa qaadanaysaa. fursadda up trendka oo asalka ah ayaad qaadanaysaa. waa fahantaan malaynaya. waa idiin soo dhigayaa waxa weeye telegramkana muuqaalkan ku base garee analysis-ka aad samayn doontid wiigaan soo socda insha Allah tacaala Euro USD bilowgeeda isniintaba fursad inaan ka helayno u badan tahay. waay maxaan ku iri haddii suuqu meeshaan inaan dhigtay waa aragtaan soo maaha calaamadii isha ku ay ahayd oo waxa weeye suuqu jabinta aan ka doonayay counter trendka fursadii waxyaalihii kale oo dhan oo shuruudo aan ka soo helay. haddii la jabiyo zone-kan waa zone muhiim marka. haddii zone-kan la jabiyo micnaheedu waxa weeye counter trendkana la jabiyo fursadana fail noqon doonto insha Allah tacaala oo ansax noqon doonto haddii marka lagu soo laabto. marka la jabiyo bayda hore ka qaadan maysid. muhiimadan waxa weeye in lagu jabiyo oo lagu ku soo laabto zone-keeni ilaa weli waxa ku dhiman shardi ka mid ah shuruudihii aan ku qaadan jirnay trade Soma. waana shardiga ugu dambeeyay waa counter trend break hadaa heshid waa enter the trade ka qaadanaysaa take the trade away. way trade-kan marka weyn higher time frame-ka shuruudaha dhan waan ka haynaa. waxaan haynaa shuruudda koowaad oo ahayd jihadii suuqu u socday. jihada suuqu u socday marka waa maxay? waa up trend weeye kor buu socdaa. talabaad waan haynaayo maxaa weeye zone-keeni waa soo helayo waa kan. ka saddexaad waa maxay? liquidity-gina waa soo helayo waa kan. ka afraad waa maxay? manipulation-kiina waa dhacayo liquidity-gii waa la soo jebiyey. dadka retail trader lacagta waa laga qaatay. waxa inoo dhiman keliya oo aan isha ku hayay muxuu ahaay jimcadii iyo shalay iyo salaasadiiba in la ii jabiyo counter trend kadib aan fursadeena qaadano. counter trend hadda hadduu suuqan lacagtan soo laabatay ee suuqu ku xirmay jimcihii bilaa waxa weeye aan market makers badan aan suuqa ku jirin haddii ay ii jabin lahayd oo ii soo laaban lahayd soo laabadka halkan fursadeena waa ka fulin lahayn. haddii ay jabin weydana fursadeena silka aman halkaa ka fulin lahayn. inta ayna aad ugu fiirsataan inaydan ku jahwarino aad u fahantaan isku daya. lacagtaani haddii ay halkaa jabiso fursad bay aban qaadanaynaayo jabintan micnaheedu waxa weeye volatility-gii down trendka baa lagaa jabiyey oo suuqii soo socday oo down trendka u soo socday oo suurtagalha low high ku soo socday ee ay suurtagal ahayd trade-kaaga weyn ee up trendka suuqa waana la iskareysatay inuu kaa jabiyo ayaa isagii lagaa jabiyey wey macnaheedu. that means suuqu weli up trend ayuu u sii soconayaa ee diyaarso fursadahaaga bayda suuqu saas kula hadlaya. taas in jabinta lagu sheegay macnaheedu waa kaas. hadduu laakiin jabin waayo ka soo laabto maxaa weeye macnaheedu zone-kan ayaa zone-nimadiisa xaqiijiyey oo marketkii fatuuday marketkii celiyey up trendkii marka waa fashilmayaayo haddii liquidity-gaygan la jibsado lugta jibisana la soo jabiyo liquidity-gan lugtan hadda halkaa markuu suuqa ku bilowdo hadduu isku dayo inuu liquidity-gan jabiyo
oo jebinta uu jebiyey aanu zoonkana sii raacin isagii meeshii lugtii lagu dhitiga jebisay la soo jebiyo halkaana waxaa ka diyaarsanaysaa halkaana maxaa ka diyaarsanaysaa inaad trade-ka qaadatid waa ka diyaarsanaysaa waa fahamtaan malanaya oo fursadaadu sel bay noqonaysaa selkaaguna weliba sel muddo dheera noqon maayo oo waa lower time frame sell weeye high time frame sell maaha ilaa waxaa kaga baxaysaa trade-ka high lowgan ilaa iyo halkaasaa kaga baxaysaa zoonkaagan marka la soo gaaro zoonkan asalkaa marka la soo gaaro baa ka baxaysaa sababta aad uga baxaysid maxay tahay sababta aan uga baxay waxa weeye weli lama jebin uptrendkii suuqa ee weynaa waa nool yahay ee waxa aan ka faa'iidaysanayno waxa weeye short time scenario ah oo suuqu inta aanu fursadda weyn ku siin fursad yar oo laga faa'iidaysanayo waana fursadda lagu gaarayo meesha asalka ah wey halkaasaan kaga baxayna halkan sababtoo ah waa laga soo celin karaa micnaheedu maxay tahay waa laga soo celin karaa marka aan fursado kale oo sel asii raadsanayno waa marka hayr lowgeenaan lanoo jebiyo mustaqbalka insha allahu tacaala taasi waxa weeye marka la ixtiraamo zoonkaagan haddii la ixtiraami waayo zoonkaagan oo la jebiyo maxaa dhacaya baan ku yidhi haddii la ixtiraami waayo zoonkaagan oo la jebiyo maxaa dhacaya suuqani waa kan halkuu marayaa halkaasuu marayaa zoonkiibuu lagu dhitigay intuu jebiyey buu zoonkiina ku sii daray that means maxay tahay marka maxay tahay micnaheedu counter trendkii baa lagu jebiyey weeye oo waa lagaa istaajiyey fursadaadii waa lagaa istaajiyey iga bilaadaba sorry alle hada waa lagaa istaajiyey weeye counter trendkii iyo qulqulkii iyo volatility-gii down trendka already waa lagaa istaajiyey haddii laguu jebiyo marka zoonkan maxaa sugaysaa counter trend breakgiina waa ku dhacay shuruudahaagii kaloo dhan hore u haysatay ha lagugu soo laabto intrigaaga halkan ha lagugu soo laabto intrigaaga cusub ugu noqonaya meelahaanu noqonayaa kadibna fursadda bayga abaa qaadanaysaa meelahan sababta ka dhigaysa maxay tahay zoonkaaga hore lacagta kama qaadanaysid marka la soo jebiyo lagu dhitigaaga zoonka cusub ee halka kaaga abuurma ayaa ka qaadanaysaa trade-ka zoonka cusub ee halkaas kaaga abuurma trade-ka qaadanaysaa zoonkaasaan ka qaadanaynaa marka halkaasaan fursaddeena baydaa ka fulinayna fursaddeena baydaana halkaasaan ka fulinayna waa ila fahanteen soo maaha labada dhinac aan u fikiray ya zoonkan marka calaamadaas nalkaa ay saaran tahay waa zoon muhiima oo isniinta inoo kala caddayn doona jihada fursadda aanu qaadanayno intaa ka hor marka dhinacna isku qafili mayno haddii tan zoonkan lanoo ixtiraamaba oo zoonkan keliya marka la gaaro laga soo noqdo trade-ka qaadan maysid waxaa rabtaa haddii inuu isagana counter trend break kuu dhaco ama lugtii jebisay lagu dhitigay in laguu soo jebiyo marka laguu soo jebiyo lagu laabto trade-ka qaadanayna waxaasoo dhanna bit by bit ayaan sawiradooda halka usbuuc bilowda insha allah telegramka usoo dhigi doonaa linkiga telegramka haddaad tiktoka ku jirtid profilkeenu saaran yahay kusoo biiri doontaa haddii youtube aa iga daawanaysidna description ku yaalla waa kusoo biiri doontaa insha allah ardayda aan maalin walba waqtiga dheer ee zoomamka aan la qaadano training ideaska aan siino siraha suuqan waxa weeye rag isku dhaafay aan siino waa nagu soo biiri kartaa mentorshipka haddii aad rabtid iyadana oo waa ka qayb qaadan kartaa ardayda sida gaarka aan u train garano telegramkeena kalena waa public macluumaad iyo information iyo muxuu ahaaye pdf yo aan ka diyaarinay waxyaalaha qaarkood ayaan soo dhignaa isagana waa ka faa'iidaysan kartaa tiimkaasna waa kusoo biiri kartaa team hanaqaad academy waxaan doonaynaa sanadkan 2025 sanadkii ay dhalinyaro badani noqon lahaayeen milyaneero iyo maalqabeeno insha allahu tacaala casharadii aan wadnay istaraatiijiyadda ugu fiican forex qaybtii afraad waa soo dhignay ciddii aan daawan waa daawan kartaa qaybtii shanaad baan soo wadnaa oo aan kaga hadlayno counter trendkan laftigiisa maadaama intii kale aan kasoo hadalay istaraatiijiyadana shanteennii qodob si gaara waxaan uga soo hadalay trendiga si gaara waxaan uga soo hadalay zonka si gaara waxaan uga soo hadalay liquidity-ga si gaara waxaan uga soo hadalay manipulationka waxaa inoo dhiman oo keliya counter trendkana isagana si faahfaahsan ayaan cashar uga soo duubaynaa waana soo gelinaynaa waa mahadsantihiin soo dhawaada